بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن داوديال كسو دوادا قضبضا ورركا ورباهنتا فيو الصومالي تي في كود ودورون وان هذه aynu uga barteen inaan hawadeedin soo marsiino war wixii caalamka daafiisa inaga soo gaaray qodobada waxa qayb ka ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo odayaasha dhaqanka magaalada Baydhabo ka la hadlay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo horumarinta dawladnimada madaxweynaha waqooyi bari Soomaaliya oo shacabka uga baaqay ilaalinta midnimada iyo wadajirka 17 sano kadib ciidankii isku furay Muqdisho iyo Baydhabo oo la dalacsiyay madaxtooyada Soomaaliya oo faahfaahin ka bixisay safarka madaxweynaha uu ku joogo magaalada Baydhabo markabka shidaal qodista Turkiga oo la shaaciyay xilliga uu soo gaaray Soomaaliya wararka Soomaalida ka baxsan waxa qayb ka ah Iran oo weerar culus ku qaaday Imaaraadka iyo dawladda Imaaraadka oo sheegtay in ay iska difaacday weeraradii Iran intaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah qodobada warka warbaahinta VO isku wada ugu dooron u diyaar garow warka oo dhameystiran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa odayaasha dhaqanka ee koonfur galbeed oo ku sugan magaalada Baydhabo kala hadlay geedi socodka dimuqraadiyadda iyo horumarinta dawladnimada warbixinta soo socota waxa qalinka u qaatay wariyahayaga Maxamed Cali Siyaad madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan muhiim la yeeshay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka koonfur galbeed xilli uu ku sugan yahay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay kulankan ayaa qayb ka ah dadaalada dowladda federaalka Soomaaliya ee ugu jirta xoojinta nabadda iyo dib u heshiisiinta bulshada iyo horumarinta dawladnimada gaar ahaan deegaanada koonfur galbeed oo wajahaya duruufo siyaasadeed iyo kuwa bini'aadanimo intuu socday kulanka ayaa si gaar ah waxaa looga wada hadlay qodobo ay ka mid yihiin xoojinta nabadda iyo wada noolaanshaha bulshada dib u heshiisiinta iyo xalinta khilaafaadka dardargelinta geedi socodka dimuqraadiyadda gurmadka abaaraha iyo taageerada bulshada nugul iyo horumarinta dawladnimada iyo adeegyada aasaasiga madaxweynaha ayaa carabka ku adkeeyay muhiimadda ay leedahay in la mideeyo dadaalada dawladda iyo hoggaanka dhaqanka sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa bogaadiyay odayaasha dhaqanka isagoona xusay in ay door weyn ku leeyihiin ilaalinta midnimada bulshada xalinta khilaafaadka gudaha iyo taageeridda dawlad dhiska iyo xasilinta dalka waxaana sidoo kale uu ku booriyay in ay sii xoojiyaan doorkooda si loo gaaro xasilooni waarta dhanka kale odayaasha dhaqanka koonfur galbeed ayaa uga mahadceliyay madaxweynaha Soomaaliya kulanka iyagoona ku bogaadiyay booqashada uu ku yimid magaalada Baydhabo sidoo kale odayaasha dhaqanka ayaa madaxweynaha ugu baaqay in laga shaqeeyo xasiloonida isla markaana rabitaanka shacabka koonfur galbeed uu tixgeliyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kulankan ayaa muujinayay muhiimadda wada shaqaynta dawladda iyo bulshada gaar ahaan hoggaanka dhaqanka si loo xoojiyo nabadda iyo horumarka dalka waxaana la filayaa in wada tashadaasi ay horseedaan in madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu tixgeliyo baaqa odayaasha dhaqanka ee ku aadan xasiloonida koonfur galbeed madaxweynaha waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa shacabka waqooyi bari ugu baaqay ilaalinta iyo midnimada waqooyi bari sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyahayaga ayaan Yuusuf Faarax madaxweynaha dowlad goboleedka waqooyi bari Soomaaliya Cabdulqaadir Axmed aw Cali Firdhiye ayaa baaq muhiim ah u diray shacabka ku dhaqan deegaanada waqooyi bari isagoo ku adkeeyay ilaalinta midnimada iyo wadajirka bulshada madaxweyne Firdhiye ayaa sheegay in xilligan ay muhiim tahay in laga fogaado kala qaybsanaanta iyo wax kasta oo wiiqi kara isku duubnida bulshada isaga oo xusay in wadajirka iyo midnimadu ay yihiin tiirka ugu muhiimsan ee lagu gaari karo nabadda iyo horumar waara sidoo kale madaxweyne Firdhiye ayaa tilmaamay in maamulka waqooyi bari uu si gaar ah diiradda u saarayo ka hortagga qataraha ka dhanka ah midnimada Soomaaliya xilli uu sheegay in dalka uu wajahayo caqabado culus oo halis gelin kara wadajirka ummadda Soomaaliyeed waxa uu intaasi ku daray in qatarahaasi ay si gaar ah u saameyn karaan deegaanada waqooyi bari
taasi oo keentay in maamulka uu xoojiyo dadaalada lagu ilaalinayo xasiloonida iyo wadajirka bulshada. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan bulshada reer Waqooyi Bari in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka, in laga fogaado kala qaybsanaanta iyo in la adkeeyo wadajirkeena. Dowladda Waqooyi Bari waxay xoogga saaraysaa ka hortagga faragelinta sokeeyaha iyo shisheeyaha. Saad ka warqabtaan Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya midnimadeedii iyo wadajirkeeda waxaa soo food saaray caqabad weyn iyo khatar weyn oo halis gelin karaya wadajirka dhuleed iyo daleed ee dalkeenna. Khatartaas soo wajahday Soomaaliya oo dhan waxay si gaar ah u taabanaysaa dadka iyo deegaanada dowladda Waqooyi Bari ee Soomaaliya. Dowladda Waqooyi Bari iyadoo ka duulaysa ka hortagga khatartaas waxa ay si dhow ula shaqaynaysaa beesha caalamka saaxiibada Soomaaliya iyo dowladda federaalka ah si looga hortago khatarta ku wajahan wadajirka iyo midnimada iyo masiirka bulshada Soomaaliyeed iyo Waqooyi Bariba. Waqooyi Bari Soomaaliya waxay diyaar u tahay wada shaqayn buuxda oo ku dhisan ixtiraam wada tashi, laakiin ma aqbali doono faragelin waxyeello ku leh madax banaanideenna iyo taabagelinta maamulkeenna iyo rabitaanka shacabkeenna. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay ku jirtaa marxalad isbedel iyo dhismo dowladeed oo weli u baahan xasilooni, wadajir iyo xoojinta hay'adaha dastuuriga ah. Dowladda Waqooyi Bari waxay soo dhaweynaysaa dhamaystirkii iyo wax ka beddelkii dastuurka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale waxay ku baaqaysaa dowladda Waqooyi Bari dardargelinta hannaan doorasho oo ku yimaada qof iyo cod. Sidoo kale waxaan ku baaqaynaa in xaaladda ismarwaaga siyaasadeed lagu dhammeeyo loona maro dariiqa wada hadalka. Dowladda Waqooyi Bari iyadoo ka duulaysa dowrkeeda taariikhiga ah ee ku aadan hormuudnimada dowlad dhiska iyo ilaalinta midnimada, waxa ay mar walba u taagan tahay ilaalinta wadajirka iyo dhowrista nidaamka federaalka ah, midnimada dalka iyo wada shaqayn dhab ah oo ku dhisan is-ixtiraam iyo iskaashi. Mas'uuliyadda ina saaran waa mid culus, balse waa mid suurtagal ah haddii aynu midaysannahay kana shaqayno danaha guud ee shacabka oo aan ka faa'iidaysano fursadaha jira kana gudubno caqabadaha si aan u dhisno mustaqbal ay ku faani karaan jiilasha soo socda. Ilaahay waxaan ka baryayaa inuu inoo fududeeyo gudashada waajibaadkeenna dastuuriga ah inagoo u adeegayna si kaliya laab ah bulshada iyo shacabka reer Waqooyi Bari. Saraakiishii ka qayb qaatay in ay dib u furaan wadada xiriirisa magaalada Muqdisho iyo Baydhabo in ka badan 17 sano ay xirteen kooxda Al-Shabaab ayaa la dalacsiiyay. Wariyahayaga Maxamed Cali Siyaad ayaa inoo dhameystiraya. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa shaacisay tallaabo muhiim ah oo lagu dhiirigelinayo ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya oo 17 sano kadib isku furay socodka wadada xiriirisa magaalooyinka Muqdisho iyo Baydhabo. Ciidamadan ayaa lagu abaalmariyay dalacsiinta min hal darajo, taas oo lagu maamuusay doorka ay ka qaateen howlgalka guuleystay ee lagu furay wadada xiriirisa Muqdisho iyo Baydhabo iyo sidoo kale howlgalkii gaarka ahaa ee ka dhacay magaalada Baydhabo. taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya Ibrahim Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in dalacsiintan ay tahay mid lagu aqoonsanayo geesinimada ciidamada howlgalka guuleysta ee Baydhabo iyo doorka ay ku leeyihiin sugidda amniga guud ee dalka. Taliyaha sidoo kale waxaa xusay in tallaabadan ay qayb ka tahay qorshaha lagu dhiirigelinayo ciidamada si ay u sii laba jibaaraan howlgallada ka dhanka ah kooxaha nabadiidka ah iyo sugidda amniga guud ee dalka. qodobka ugu horeeya horta inta ani aan karo min hal darajada alcadorta inaan idinkugu bishaareeyo saraakiisha idin hogaaminaysay iyo saraakiil xigeenka ayagana ballantaasoo kale qabaan guushii aad soo hoydeen abaalmarinteeda ay leeyihiin. waxaan rabaa in guushaas iyo sharaftaas aad soo hoydeen inaan idinkugu hambaliyeeyo. waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan farsamo yaqaanada idinla socday, hadduu ahaan lahaa tiimkii minabaarka, hadduu ahaan lahaa tiimkii caafimaadka oo xaqiiqatan dadaal dheeraad muujiyey oo ciidanka inta aad soo socoteen daqiiqadna agtiisa uusan dhaawac oolin uu duubin ma ogiye. waxaan rabaa sharaftaas iyo karaamadaas dowladda Soomaaliyeed waa idin haysaa, ummadda Soomaaliyeed waa idin haysaa. siday ummadda idinkugu faraxsaneed si ka sii badan inay idinkugu faraxsantahay rabaa maanta inaan idin sheego, idinna mahadceliyo. maanta guulaa joogtiin, guushii waxaa idinka rabnaa inaa ilaalisiin. waxaan rabaa marka waddadaas ee shacabka ay ku dhib qabeen
tahdiidka badan lagu haayay baadda looga qaadanayay waxaan rabnaa sideedaba inaynan mar dambe nimankaas argagixisada ee dhigmiiratada inaynan ku soo noqonin waddadaas sideedaba inay wixii hadda ka dambeeya sida loo furay ee u furnaatay inay weligeed u furnaato waxaan kaloo rabaa dabcan fadhi ma yaalo shaqadii waxaa la rabaa meesheeda inay ka sii socoto dadkan Soomaaliyeed ee magaalada Baydhabo markaa soo galeyseen sida quruxda badnaa idin soo dhaweeyay waxaa la ii sheegay dukaanleyda nin kamid ah wax allaale wixii dukaanka iskafaala biyo u saarnay idinka marqaati ka inuu intuu soo bixiyo oo in sii Soomaan markaa wadada soo galeyseen dadka sidaas idin soo dhaweeyay ee sidaas idin jecel waxa ogaatiin waalidiintooda inay nimankan argagixisada ka soo qaxeen ay magaalada daafaheeda kaamamka arkaysaan oo qaxootiga ay ku jiraan nin gurigiisa iyo xoolihiisa dheedheel uga tagay ma jiriya wax kale uguma soo tageen gumaysiga nimankan uga soo tageen hadduu beer yar lahayna beerta markii ay soo go'daa waxa la leeyahay keen wixii beerta ka soo go'ay hadduu xoolo leeyahayna inta loo imaadaa xoolaha ka ku jiro waxa la lahaa keen gunnimadaas waa horta dadkan wax soo barbixiyay waxa idinka rabaa marka wixii hadda ka dambeeya qorshooyinka noo yeelaa wuxuu yahay dadkan Soomaaliyeed ee guryahooda cadawga uu ka soo barbixiyay sidii loogu celin lahaa inaan ka shaqeyno iyadoo maalintii saddexaad madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud uu magaalada Baydhabo kula shirayo qaar ka mid ah waxgaradka Koonfur Galbeed ayaa goor dhaweyd madaxtooyada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxa ay faahfaahin ka bixisay guud ahaan ujeedada socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh sida warbixintan uu ku faahfaahinayo wariyahayaga Ismaaciil Maxamed Said Cali madaxtooyada Soomaaliya ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixisay socdaalka madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku joogo magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay afayeenka madaxtooyada Cabdiraxmaan Aadan Cali Xadaana ayaa sheegay in safarka madaxweynaha uu salka ku hayo arrimo muhiim ah oo la xiriira xaaladaha siyaasadeed ee Koonfur Galbeed sida uu sheegay afayeenka madaxweynaha ayaa Baydhabo u jooga xalinta xiisadaha siyaasadeed ee ka tagan Koonfur Galbeed la kulanka qeybaha kala duwan ee bulshada iyo siyaasiyiinta iyo dardargelinta hanaanka doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda deegaanada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya imaanshaha madaxweynuhu wuxuu ku soo beegmay iyadoo Baydhabo ay ka jireen xoogaa yaroo qalalaasa laakiin aad mooday imika in nabadii aad mooday inay aad u soo korayso isla markaasina wax badan ay soo korodhay marka madaxweynaha horta ujeedada ugu muhiimsan waxa weeyaan in nabadii hore u jirtay la sii adkeeyo madaxweynuhu intuu yimi isla markiiba waxa uu la hadlay dhammaan odayaashiibuu la kulmay culimaadudiinkiibuu la kulmay siyaasiyiintii qorweyntii joogtay magaalada iyo kuwii kale in badan ka maqnaa laakiin imanka soo gaadhay intaba madaxweynuhu la kulmay wuxuu la kulmay saraakiisha ugu waaweyn ee amniga hadday tahay saraakiishii xamar ka timi ee qaranka taliyaha ciidanka qaranka iyo taliyaha booliska taliyaha asluubta dhammaan taliyaasha kale ka sii hooseeya iyo ciidankii qaranka amniga si loo adkeeyo iyo weliba maamulku taliyaasha faraha badan leh iyo booliska iyo ciidanka qaranka ee uu leeyahay si loo adkeeyo nabadda marka ciidankii waa la kulmay odayaashii waa la kulmay madaxweynuhu waxa kaloo madaxweynuhu qaranku la kulmay culimadii wuxuu la kulmay ganacsatadii marka madaxweynuhu wuxuu doonayaa in dhammaan bulshada waxa weeyaan la wacyigeliyo loo tuso in ay Baydhabo sida imikaba aynu u wada joognay inay ammaan tahay halkaana ay ka sii socoto ujeedada ugu muhiimsanna ay tahay in ummaddu iyadu ay ayaheeda ka tashato in ummaddu iyadu ay qofkii doonayso doorato inay ummaddu iyadu qofka ay doonayso ay jeclaato iyadu ay ka dhigato hogaamiye taas ayaana muhiima taas ayaana nabadda adkeyn karta taas ayaa horumarka adkeyn karta taasa ganacsiga adkeyn karta taasa isku dhawaanshaha iyo kalsoonida ummadda dhexdeeda ka dhaxeeya adkeyn karta rajada laga leeyahay in maamul qof iyo cod ah laga hirgeliyo Koonfur Galbeed intay la eg tahay maadaama maamulkii hore halkan ugu jiray halkan uu ka baxay dowladda federaalka ay wado qorsho ay ugu bilaabayso Koonfur Galbeed doorasho qof iyo cod ah hanaankaas iyo nidaamka doorashooyinka qofka iyo codka ah deegaanada Koonfur Galbeed la rabo in laga bilaabo wada hadalkeedii xagee buu maray runtii ismalihi wax caqabadaha hortaagan mar haddii madaxweynaha qarankana uu joogo guddidii doorashaduna ay kuba dhawaaqday inay ugu bilaabayso Koonfur Galbeed ay ka bilaabayso doorashada one man one vote ama cod iyo qof
marka wax caqabado waaweyn oo hortaagan ma jiro ammaanka in la sugan weeyaan ammaankana waa sugan yahay alxamdulillah in dhammaan siyaasiyiintuna ay ku wada qanacsan yihiin in waxa kaliya ee qofka lagu aamini karo inuu yahay hogaamiye ama ninka ummadda hor istaagaya inuu yahay in ummaddu iyadu ay u igmato oo ummaddu iyadu ay soo doorato marka in meel wanaagsan bay runtii maraysaa waxaanan ilaahay idankii ka rajaynayaa sida ummadduba ay ummadda oo dhan ay wax weeyaan filayso in bilaha soo socda in koonfur galbeed ay dooran doonto iyadu hogaamiyaheedii ay dooran doonto maayarkeedii ay dooran doonto guddoomiyihii degmada yacni dhammaan meelihii loo baahnaayo oo dhan in iyadu shacabku iyada loo saari doono gacanta oo isagu uu ku bedeli doono amaba qof cusub ha noqdo amaba kii hore ha noqdo inuu isagu wax ku bedeli doono sida uu doonayo markabka shidaal qodista dalka Turkiga ayaa la shaaciyay xilliga rasmiga ah uu soo gaarayo dalka Soomaaliya wariyahayaga Maxamed Cali Siyaad haynoo dhameystiro dowladda Turkiga ayaa si rasmi ah u shaacisay in markabka qodista shidaalka ee badda Soomaaliya maalinta Jimcaha uu soo gaari doono biyaha Soomaaliya si uu u bilaabo ololihiisa ugu horeeya ee qodista shidaalka xeebaha dalka mashruucan ayaa loo arkaa mid taariikhi ah oo door weyn ka qaadan kara horumarinta dhaqaalaha Soomaaliya iyadoo sidoo kalena uu xoojinayo doorka Turkiga ee dhinaca tamarta ee caalamka wasiirka tamarta iyo kheyraadka dabiiciga ee dalka Turkiga ayaa sheegay in howlgalkan uu yahay mid istaraatiiji ah isla markaana qayb ka ah iskaashiga ballaaran ee u dhexeeya Ankara iyo Muqdisho markabkan ayaa la filayaa inuu diiradda saaro qodista ceelka loo bixiyo Curadwan kadib safar qaatay 45 maalmood uu kaga soo ambabaxay dekedda Mersin ee dalka Turkiga wasiirku waxa uu xuseen mashruucan uu fursad dhaqaale oo weyn u yahay Soomaaliya gaar ahaan dhinaca sahminta iyo soo saarista shidaalka taasoo horseedi karta kobaca dhaqaale iyo shaqo abuur ballaaran sidoo kale howlgalkan ayaa loo arkaa guul istaraatiiji ah oo muhiim u ah himilooyinka Turkiga ee ku aadan ballaarinta joogitaankiisa tamareed ee dibadda iyo xoojinta xiriirka uu la leeyahay Soomaaliya falanqayaal ayaa tilmaamaya haddii mashruucan uu guuleysto in Soomaaliya uu ka dhigi karo dal leh kheyraad shidaal oo la taaban karo taasoo wax ka bedeli karta mustaqbalka dhaqaale ee Soomaaliya ugu dambeyntii dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga ayaa la filayaa inay sii xoojiyaan iskaashiga dhinacyada tamarta amniga iyo horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha wahagaag weli waxaad daawanaysaan wararka VOA Soomaaliya TV oo Muqdisho kaga imaanayo iminkana wararka caalamka waxaa qayb ka ah Iiraan oo weerar culus ku qaaday dalka Imaaraadka iyo sidoo kale dowladda Imaaraadka oo markaa si rasmi ah u shaacisay inay iska difaacday weeraradii Iiraan kaga imaanayay wasaaradda gaashaandhigga Imaaraadka Carabta ayaa faahfaahin ka bixisay weeraro culus oo dhanka cirka ah oo la sheegay in ay ka yimaadeen dhinaca Iiraan kuwaas oo isugu jira gantaale iyo diyaarado aan duuliye lahayn ee loo yaqaan droniska bayaan ay soo saartay wasaaradda ayaa lagu sheegay in ciidamada difaaca cirka ay si guul leh ay u fashiliyeen dhammaan weeraradii lagu soo qaaday gudaha dalkaasi 24 saac la soo dhaafay sida lagu sheegay warbixinta waxaa la qabtay 9 gantaal plastic ah waxaa la soo riday 1 gantaal cruise ah waxaa la burburiyay ilaa 50 droniska mas'uuliyiinta ayaa xaqiijinayay in aysan jirin wax khasaare naf iyo maal ah taas oo muujinaysa waxtarka nidaamka difaaca cirka ee dalkaasi tani markuu bilowday dagaalkii bariga dhexe 28 Febraayo Imaaraadka ayaa sheegay in ay ka hortageen weeraro badan oo daba joog ah kuwa oo la sheegay in ay kala hayeen 507 gantaal plastic ah 24 gantaal cruise ka ah iyo 2191 oo droniska muuqaalkaasi waxa uu dambeeyay guud ahaan warka warbaahinta VOA Soomaaliya TV oo xilligan idinkaga imaanayay magaalada Muqdisho anigoo Sharmaaka Xuseen ayaa inta warka hawada ka baxay la socodsiinay inta warkan warka xigaan ku kulmi doono sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh